بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. isku soo noqdo wanaagsan kadib mashquul yar waxaan dib u bilaabi doonaa casharadeenii imtixaanaha noo ahaa oo ku saabsanaa cilmiga statistics-ka. intii la socotay casharkii ka horeeyay ama casharkii ugu dambeeyay waxaan ku soo qaadanay qaybaha ay u kala baxaan doorsoomayaasha. waxaan soo sheegnay inay laba qaybood u kala baxaan oo kala ahaa quantitative variables iyo qualitative variables. casharkii kan ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay ama si fiican ugu soo sharaxnay qaybta koowaad oo ahayd quantitative variable. halka casharka maanta aan si fiican ugu sharxi doono insha Allah waxa loo yaqaan qualitative ama categorical variables. aan guda galno casharkeena waxaan leenahay doorsoomayaasha kuwaas oo aan loo soo bandhigi karin qaab tiro ahaan ah laakiin loo qaybi karo qaybo kala duwan ama categories kala duwan ayaa waxa loo yaqaanaa qualitative ama categorical variables. xogta laga soo aruuriyo variable-ka ama doorsoomaha noocan ah ayaa waxa loo yaqaanaa qualitative data ayaa loo yaqaanaa. tusaale ahaan heerka arday bachelor ah oo college dhigtaa wuxuu noqonayaa tusaale ah qualitative variable. maxaa yeelay ardaygu wuxuu noqon karaa ama dhici karaa mid kamid ah afartan category ama afartan qaybood mid kamid ah ayuu ardaygu dhici karaa. oo ardaygu wuxuu noqon karaa arday sanada koowaad oo freshman ah ama wuxuu noqon karaa arday sanada labaad ah ama wuxuu noqon karaa arday sanada saddexaad ah ama arday sanadii ugu dambeeyay oo afraad ku jira ayuu noqon karaa. tusaalayaal kale oo aan u soo qaadan karno qualitative variables-ka waxaa kamid ah jinsiga qofka oo qofku wuxuu noqon karaa lab ama dhadig. sidoo kale tusaalayaasha waxaa kamid ah magaca shirkad kombuyuutar soo saarta, fikradaha dadka iyo midabka gaari uu leeyahay. tusaalayaashaas oo dhan waxay u taagan yihiin waxa loo yaqaan qualitative variable. casharka maanta wuxuu dhameystir u ahaa casharkii ugu dambeeyay ee aan channelka soo dhignay. intiini hore u daawatay aad ayaad u mahadsantihiin. asxaabta cusub waxaan idin soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka. waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartiin, videogana like saartiin, taas oo noo noqonaysa dhiirigelin iyo inaan hor u socod sameyno insha Allah. aad mahadsantihiin.